السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمانت نصور كشيء إن ورث جوان ليلنا وزير كوزارة بيرها دول في ذلك الصومالية مدن عبد أحمد محمد بافع مدن وزير مركز صدو روما إيو أونيفرسال تي في. أدب ما تصنتهاي روبرتو أديجا إيو تلفزيون كيونيفرسال. مدن وزير مركز واحد نوشكتا إن سعاق سوغار تليانيكا محوق سلسنية. السعودال كان أن هذا كل من تليانيكا جدديس waxay ahayd in aan ka qayb galno saddex shir oo halkan lagu qabtay shirka koobaad wuxuu ahaa shir hay'adda IFAD la yiraahdo ay golaheeda maamulka uu halkan isugu yimaado ayaan ka qayb galnay waxayna ahayd markii horeysay oo muddo 4 sano ah dawladda Soomaaliya ay ka qayb gasho shirkaas ay ka qayb gasho waxa kaloo shirka markii uu dhamaaday dabada looga qabtay oo ay ka faa'iideystay dawladda Talyaaniga wasaaradda arrimaha dibadda oo iyana waday hindise ay rabto in ay ku hormariso beeraha Afrika oo loogu talagalay hindisahaasi Talyaaniga iyo Afrika oo wasiirada beeraha ay ka wada qayb galeen xogaa munaaqashana ay dhex martay ayaga iyo wasaaradda arrimaha dibadda shirka saddexaad wuxuu ahaa shirka FAO oo shir goboleed ah oo loo qabto gobolkan la yiraahdo bariga dhow oo maxaan ku raay isugu yimaadaan ilaa iyo dhowr iyo 30 dawladood oo wadamada Carabta iyo wadamada kale ee Mediterranean-ka degan iyo qaar kale Asian-ka ah ayagana xiiseeya arrimaha kan isugu yimaadeen shirkaas oo la qabto sanadkiiba labadii sanaba mar la qabto ayaan soo gaarnay shirarkaas ay ahaayeen kuwa aan u nimid waxaan kaga faa'iideysnay shirarkaas in aan wada hadallo aan la yeelano dawladaha ka soo qayb galay iyo hay'adatan FAO laftirkeeda oo hoggaankeeda aanu shir la galnay qaybaha kala duwan dadka jooga ee khuseeya ee ka shaqeeya arrimaha khuseeya geeska Afrika iyo gaar ahaan Soomaaliya ayagana si gaar ah soo aragnay waxaan kaloo aan aragnay wasaaradda arrimaha dibadda Talyaaniga qaybteeda u qaabilsan wax wada qabsiga waxyaabahaasi aanu ayagana aan ku soo qaadnay waxa ugu waaweynaa sidii ay noo dhexmari lahayd wax wada qabsi dhinaca farsamada ah iyo dhinaca maaliyadda مدن وزير شركان اتخاب قشي محاكا قصة بحي مجران وح بلنقات كول والله دذلك انه وحوها ان ان افسرنه ان سومالي مانتي اسبدل وكسعدو دينا السياسة دا قرشة عدنا انو جيرو و كسابسن ودنك ان لغسارو حالدو هدو جيرو لنا قارسية لبكون يلحي طبانك ان او الساقا حالدتن ku jira ka baxay oo doorashooyin ay dhici karaan maamulkana uu noqdo meeshaas ka dhashaa maamul dadka ay soo doorteen waxaan u fasirnay marka in qorshahaasi iyo dadaalka siyaasadeed uu barbar socdo dadaaladii kale oo lagu soo nooleynay dhaqaalaha gaar ahaan wasaaradda beeraha waxa ay ka damacsan tahay in ay wax kaga qabato wax soo saarkii dudumay sidii loo soo nooleyn lahaa sidii loo kobcin lahaa wax soo saarka beeraleyda wax loogu qaban lahaa qaar badan oo ayaga aan aragnayna waxay nala garteen in baahi xoog leh ay jirto waxna waa nooga bilowdeen sidii aanu wax wada qabsi dhinacaas aanu uga samaysan lahayn dabcan shirarkan oo kale marka la yimaada waxyaabo badan baa la isku soo qaadaa isla markiina la iskuma soo boodo faraq la isuma buuxiyo laakiin meel fiican bay noo maraysaa oo bilow fiican oo laga sii amba qaadi karo meeshaas wadasir waxaan ku warqabnaa in hadan kusoo noqono dhinaca beeraha waxaa jirta hay'adaha loo yaqaano FAO ee ku taal Talyaaniga magaalada Roma FAO waxay bixisaa caawinaad ay siisaa beeraleyda iyo xoolo dhaqatada waxay siisaa cagaf abuurka beeraha iyo waliba daawadunka xoolaha maxaa idin hor joog inaad weydisi maadaama Soomaaliya u baahan cagaf والله ساد لسعته دولدان محن كره حكومة هذا الدسي قربا أي هول قشي وحنا أن قبلوا إن أننا نسوي سنة فاول أفتر كذا نسوي سنة محا هوري الله سو قبتي محا هدير تان سعودة
maxaa la damacsan yahay waxaa aanu shir ku yeelanay xamar oo shir 2 maalmood socday hadda markii aan Roma ku soo socday waxaan ku hakaday Nairobi oo aanu maalin kale iyagana aan shir aan la galnay FAO-da hadda markaan halkan ka noqdana annagoo saraakiishii ugu sarreysay oo maxaan ku raadtaa hoggaanka FAO gacanta ku haysay aan is aragnay wararkii inaan dhex marayna aan sidno waxaan doonaynaa inaan mar kale ku noqono Nairobi oo aan ka wada hadalno sidii loo bedeli lahaa qaabka aan u wada shaqeyno waxaan rabnaa FAO hadda wixii ka dambeeya in ay qirto in kaalinta wasaaradda beeraha ay ku leedahay horumarinta dib u soo celinta wax soo saarka ay aad muhiim u tahay ayna suuragalna ahayn in loo yeeriyo wasaaradda waxyaabaha laga qabanayo dalka gudihiisa laakiin caalamka ay waxa uu ku tarayo Soomaaliya inay ahaadaan wax dadkeeda ay isla garteen inay yihiin waxyaabaha mudnaanta iska leh waana sida lagu heshiiyey marka aad fiiriso mabaadiida wax wada qabsiga iyo gargaarka maxaan ku dhahdaa adduunyada la siiyo asaaska waxa uu ah oo ah in ay lahaanshaha barnaamijyada laga fuliyo dalalka ay yeeshaan dawladaha inay yeeshaan inay noqdaan qorshooyinkan inay noqdaan qorshooyin qaranka uu leeyahay marka waxa la wixii qorshe ah iyo barnaamij ah oo ay soo bandhigaan hay'adaha caalamiga ah inay noqdaan kuwa la saan qaadi kara qorshahaas xukuumadda ay degsatay waxyaabahan hadda isla garanay ka mid tahay waxaan rajaynaynaa in ay na dhex marto wada shaqayn intii hore aad uga xoog badan wasaaradda beerahana mudnaanta koobaad waxay hadda siinaysaa inay soo ceshato kaalinteeda soo ceshato si taas ay u gudatana waxaa la rabaa in dib u dhiskii laga galo hay'adihii wasaaradda xagga maxaan ku dhahdaa dadka shaqeynayo shaqada qabanaya aqoontooda iyo xirfadooda iyo nidaamka lagu shaqeynayo laftirkiisa iyo goobaha lagu shaqeynayo taasina meel fiican bay noo maraysaa hadda mudan wasiir waa maxay qorshaha wasaaraddaada ee kor u qaadida soo saarida beeraha wallahi muddadii yareed oo hadda aan joognay waxaan bilownay wada tashi aan la yeelanay dhammaan inta danaynaysa ama saameynta ay ku yeelanayso shaqada laga qabanayo wasaaradda beeraha iyo sectorkan beeraha waxaan kulama la yeelanay beeralayda yararka ah beeralayda waaweyn wax dhoofiya ay aqoonyahanka beeraha hay'adaha maxalliga oo ka shaqeeya ay arrimaha beeraha ka shaqeeya waxa aanu rajaynaynaa in aakhirka bisha April meelahaasi ay noo dhamaato waxa aan ku tilmaanay ay qorshaha istiraatiijiyadeed ee 2014-2016 qorshahaasna wuxuu tilmaamayaa 3 meelood in aan xoog saar doono midka koobaad waa dib u dhiska hay'adda wasaaradda laftirkeeda oo xaggii waxbarashada tababarkooda iyo shaqaalaha iyo sidii loo dhisi lahaa hay'adda waxqabadkeeda midda labaadna waxay tahay in dib u dhiska xagga wax soo saarka waxyaabaha lagu dhaliyo ah maxaan ku dhahdaa waraabka iyo waxyaabaha la xiriira iyo jidadka iyo iyadana in wax laga qabto midda saddexaadna waxay tahay in kor loo qaado wax soo saarka laftirkiisa oo la sugo dadka in ay helaan cunno ku filan inay helaan si looga badbaado abaarihii aan hore u soo aragnay ama loo yareeyo dhibkooda isla markaasna kor loo qaado wax soo saarka oo aanu dhiirigelinno wixii la dhoofin karo oo hadeertaan socda iyo wixii cusub oo markaa hadeertaan la bilaabi karaba intaba maartay والمسير وحاجة قرش كصابسن إن هالشيء وده هي إيطالياني إيه سوماليا إن تبلو سوء اليو لو فينت إيه صود سارد موسكا هالشيء كاس مجرى ولي هدوجر الحكومة رأي والله waxay ku jirtaa qorshe hadda aan ku sheegay waxa kamid ah in daraasad la sameeyo daraasadaas ay dib loo eego xaaladda mooska hadda uu ku sugan yahay awal halkan la keeni jiray ganacsiga dhex mari kara Soomaaliya iyo Talyaaniga dhex mari kara waana arrin aad u weyn oo aan rabno inaan ku dhiirigelino rugta ganacsiga iyo beeralayda kale ee wax soo saar ee dhoofiya annagana aan ka faa'iideysano wixii kaalmo ah oo nooga imaan kara wasaaradda nooga imaan kara arrimaha dibadda iyo hay'adeeda kaalmada oo lagu horumarin karo beeraha Soomaaliyeed
laguna soo celin karo heerkii wax soo saar ee hore ay looga gaaray beeraha Soomaaliya looga gaaray. weerar ka gadisan kuwii Muqdisho ka dhici jiray muddooyinkan ayaa lagu qaaday madaxtooyada sidee ayuu idin saameynaya ka xukuumad ahaan xarun wallahi awalan horta waxaan aad uga xunnahay wixii dhacay annaga waxaan ahayn wafdi halka ka maqnaa oo wareegay oo shirar iyo ku jiray xogta faraha badan waa xog dalka gudihiisa laga heli karo laakiin waxaan qiyaasayaa in idinkana aad la socotaan shirarkii daba jooga ahaa xukuumadda ay yeelatay oo dib loogu eegayay qorshaha maxaan ku raahdaa amniga iyo isbedelka la damacsan yahay waxaan rajaynaynaa in ay tallaabooyin cad ka soo bixi doonaan haddii la yiraahdo kordho inkastoo xukuumadina aad cusub tihiin haddana waxaa guud ahaan dowladda lagu eedeeyay in ay ka gaabisay dhinaca ammaanka hadba maxaa idin qorsheysan ammaanka dalka waxaan uga hadli karaa su'aashan si guud baan uga hadli karaa sida guudna waxay tahay طبعا waxyaabihii dhacay waxay muujinayaan in arrinta amniga ay ahayn arrin sahlan inay ahayn wixii dhaliilaha dawladda loo soo jeediyana dawladda waxaa la gudboon in ay si fiican inta u dhuuxdo daraasad ka samayso talaabada ku habboon ay ka qaado dawlad dadkeeda ku xiran waxa lagu yaqaanaa dawlad shacbiga dhageysata wixii lagu dhaliilana uga faa'iideysata in ay horumar ku samayso waxaan rajaynayaa dawladdeena in ay taasi ku sifoobi doonto oo aan wax qorshaha socdaa iyo dadaalka hadda ra'iisul wasaaraha uu muujiyay iyo gudiyada la saaray intaas oo dhan waxay tilmaan u yihiin in hawsha ay socoto oo aan yani nasibtaradan haysaa waxay tahay waxa dagaalsan qarankan iyo qayb ka mid ah barbaartiisii baa dagaalsan arrin sahlanna maahan maartay barbaartii loo dagaalayay inay mustaqbal fiican yeeshaan oo ka baxaan xaaladda ay ku jiraan qayb ka mid ah marka ayan ku qanacsanayn waxa socda ayaga lid ku yihiin waa arrin sahlan maahan waxayna u baahan tahay wajiyo kala duwan iyo jahooyin kala duwan in laga galo dadaalna aan la reebanin waxaana xaqiiqo ah dawlad ku guuleysan kartaa nabadgelyada ma jirto haddii shacabkeeda ayan ka helin gacan aynan ka helin shacabka waxaa la gudboon dawladda kaliya inaan farta lagu fiiqin laakiinse meel la isugu tago la isla eego xagee wax ka khaldan yihiin sidee loo sixi karaa maxaa la samayn karaa wadajirna qorshe loo dejiyo qorshahaasina uu sidaas ku fulo dalkan hadduu fariisto dawladda kaliya kama fariisanayo waxna ma tarayso dawladda gooni loo eedo ama la dhaliilo ama hoggaanka farta lagu fiiqo mataqaanaa waddankan xaalad aad u xun buu marayaa marxalad aad u xun u marayaa isbedelna wuxuu u baahan yahay degdeg inuu dhaco aniga waxaan aad ugu kalsoonahay gobolka banaadir oo meesha xarunta dawladda ay joogto xaaladda haddeertaan ay ku jirtaa in wax badan ay iska bedeli doonaan muddada 3 bilood oo soo socda gaar ahaan marka aad fiiriso tallaabooyinka la qaaday oo xagga amniga ah iyo qorshaha la dejiyay marka aad fiiriso waxaan rajaynaynaa annagoo dhan inaan isugu tegi doonno aan ka bixi doonno xaaladdan cakiran hadda aan ku jirno wasiir hadda usoo noqdo dhinaca faw bishii ama laba bil marmar waxay sameeyaan kulan ama fadhiya samaystaan waxay ka hadlaan arrimaha dadka loo caawina beeraleyda iyo Afrika guud ahaan maadaama ay idinka xukuumaddiina Talyaaniga qof ka joogin ma jira qof mas'uul ah oo qaabsan shaqooyinka faw soo baxayo waxaa noo jira waxaa halkan jooga wakiil gaar ah oo hay'adaha caalamiga gaar ahaan FAO jooga oo shirarka ka qayb gala xiriiriya go'aamada halkan ka soo baxa iyo wasaaradda beeraha si fiican baan ula soconnaa waxaa kaloo qofkaas xiriirka uu sugaa inuu si sax ah u socdo dawladda Talyaaniga laftirkeeda ka soo safaaradda halka kan noo joogta marka xiriirkeena aad buu wanaagsan yahay iska warqabka aad buu fiican yahay hadda wixii ka dambeeyana waxaan rajaynaynaa intaas in aan hore uga sii dhaqaaqno oo khabaarkan degdega oo na soo gaarayo ficil degdega sidii isugu bedeli lahaa inaan xoog ka saarno ugu dambeyntii telefishinka universal markasta laga fiirsadaa haddaba dad ku dhigisnaayo guud gaar ahaan beeraleyda guud ahaan Soomaaliya dhan maxaa soo jeedin lahayd wallahi aniga waxaan ku jiray dadkii xogaa dalka banaanka uga maqnaa sanooyinkan dambeeto tegtegay booqanay laakiin se banaanka u jiray
waxaana ay noqotay haddeertaan in aan kusoo noqdo oo xilkan maxaan ku dhahdaa dib u dhiska beeraha aan ka qayb galo waxaan imid waqti waddankana nabadgelyadiisa aad u xun tahay oo dadku ay la fajacsan yihiin qof bannaanka jira sababta uu soo noqon karo oo u imaan karo meesha markaad aragto beeralayda niyadda ku jirta iyo siday u hadlayaan iyo sidai ay rabaan inay wax soo saarkooda iyo tacabkooda ay uga dhabeeyaan iyadoo nabadgelyo xumadan ay jirto markaad aragto ganacsatadii oo shaqaynaysa markaad aragto aqoon-yahankii beeraha ahaa oo raba in dalkan dib ay u dhisaan waxaa ku gelaya niyad xoog laha ku gelaysa waxaan aniga aan aaminsanahay wadajir in aan wasaaraddaasi dib u dhisi karno waxaan aaminsanahay annagii beeralayda inaan isku xirmi doonno xilligan hadda soo socdana waxaan rajaynaynaa in isbeddel xoog leh uu dhaco tallaabooyin xoog leh ay dhacaan oo bilow u ah isbeddelkaas weyn oo aan rajaynayno waxaan guud ahaan aan shacbiga Soomaaliyeed aan dhihi lahaa waddankan waa uu burburay dadkiisa way kala tageen yani kalsoonidii waa ay luntay intii u dambeysay hadda 10 sano u dambeysay waa rafanaynay inaan waxun isku soo celinno wali waxbaa taagan yani xaaladdan ku jirno waxaan kaga bixi karnaa oo kaliya iyadoo meel la isugu geeyo xoogga meel la isugu geeyo la midoobo 50 sano kadib Soomaaliya meesha ay joogi doonto waxaa ka mas'uula dadka maanta nool mas'uuliyadaas in la qaado oo laga fakaro dalkan sidiisan meesha uu yaallo looga bixin lahaa meel barwaaqo loo gelin lahaa mustaqbalka dadkiisa barbaartiisa looga fakari lahaa qofkii bannaanka jooga oo hawl ka dhiganaya dadka shaqada gacanta ku haya wax ka sheegooda iyo dhaliilahooda iyo waa loo baahan yahay dawlad aan la dhaliilin dawlad maahan laakiin dhaliisha waxaa la rabaa inay daba socoto talo iyo wax qabad way sahlan tahay marka bannaanka laga joogo in wax la dhaliilo way sahlan tahay laakiin marka aad gudaha gasho oo aad runta ay ku hortimaado waxa weeye waxa ka soo horbaxaya kaalmada aad u baahan tahay dadku inay ku garabsiiyaan in wax ay hagaagaan waxaan u maleynayaa wasiir ku xigeen iyo haddii laga sugaayo dalkan inuu nabadgelyadiisa hagaajiyo barwaaqo geliyo wax badanaa naga maqan maarta xukuumadda keligeed waxba ma samayn karto dadkeeda waa inay heshaa aqoon-yahankeeda waa inay heshaa barbaarteeda waxaan leeyahay maadaama hadda ayaga qayb ka mid ay aad ugu kacsan yihiin dawladda ugu kacsan yihiin ayagoo dawladda ku kacsanna shacbi badan oo masaakiin oo islaan saaka gurigeeda ka soo kacday oo ciyaal ka timid oo canjeero meel lagu dilaayo waxaa dhacaya gifaf badanaa dhacaya gifafkan si looga baxana tabar annaga nagu xiran iyo tabar naga weyn baa jirta maarta waxaa loo baahan dalka inuu ducaysto inaan ducaysanaa loo baahan waxaan gaar ahaan loo baahan yahay barbaarteen inaan duceyno mataqaana ilaahu barbaarteen xafid ilaahu ka badbaadi dhibtay ku jiraan ka badbaadi colaada loogu yeeraayo dadka ay dilayaan ilaahu ka badbaadi ilaahayo dalkaasi noo hagaaji maanta annaga waxaan diyaar u nahay inta mas'uuliyiinta ah oo soo galay meesha iyadoo gadaal la iska fiirinayo oo ayaa haddana waxaa la rabaa in wax la qabta la rabaa maarta maalin dhaweyto qof wasiiradii hore ka mid ahaa oo iga warramayo waxa uu yiri 2009 ilaa iyo 2012 waxaa dalka ku dhintay 3500 oo askari baa ku dhimatay maxay u dhinteen waxay u dhinteen in wax isbedelaan nabad la helo horumar la gaaro waxaa kaloo dhintay 20 xildhibaano oo baarlamaanka ku jira muddadaas wuxuu ii sheegay qofka mas'uulka ah 7 wasiir inay dhimatay hadda maanta dad kale oo qaali ah baa dhintay qaar kale oo badanna waxa laga yaabaa in ay ayagana ay ku dhiman doonaan xaq darro ku dhiman doonaan laakiin dhiigaasi daatay oo xaq loo daadiyay inuu miro dhalaal rabaa waxa inay isbedelaan la rabaa maarta inaan qofna laga yeelin in aan gadaal u noqono maarta mansab kasta ha joogo meel kasta ha joogo dhalinyaro kasta ahaade inaanu iswaansano in la isku noqdo sidaan si ma ahana si dhaantaa loo baahan yahay hore inaan u soconno maarta adduunyada waa nala yaabanta meesha aan joogno iyo barwaaqada aan haysano iyo sidaanu isku dad u nahay isku diin u nahay isku dhaqan u nahay maxaa ka hadlaysan dadkana la leeyahay maarta
fardi fardi qof walbaba waxa weeye waad ka yaabaysaa waa qof mucjiso ma taqaanaa marka la isu yimaadana waxba ma tari karna maartay aniga waxay la tahay hadda waxyaabaha kan dhacaya wadan walba mar waxaa jirta wixiisa ay kacsan yihiin oo laga yaabo ma taqaanaa oo guusha u gaaray iyo mar dhibaatooyin ay jiraan hadda waxaan ku jirnaa meeshii dhibaatooyinkan ku jirnaa waxaan rajaynaynaa in ilaahay naga saaro dhaqsi nooga saaro laakiin waxay taasi qorshaheedii iyo dadaalkeedii iyo midnimadeedii ayaa la iska rabaa aniga intaan dadweynaha aan ku dhihi lahaa waxay tahay dadweynow waxaa loo baahan yahay run in loo fiiriyo ma ahan waxa hoosteena maanta yaalla laakiin 50 sano kadib xageen Soomaaliya la rabnaa 2 qof iyo 3 qof oo mas'uul ah berita la warsan maayo shacbigan xagee uu ku ogaa dalkana la oran doona qof kasta oo jooga ama qurbaha jooga ama dalka gudihiisa jooga mas'uul wuxuu ka yahay 50 sano kadib dalkan meesha uu oli doono saas inaan u fakarno oo waxyaabaha yararka oo aan isku hayno dhexdeena isku hayno aan ka tagno oo aynan indhaha naga qarin aan aragno mustaqbalka dheer ee ummad ay leedahay inaan fiirino maartay dhalinteena waxay ku dhintaan banaankay ku dhintaan wali waxay ku dhintaan badahay ku dhintaan waxay ku dhintaan dalka gudihiisa ku dhintaan xaq ma ahan waa la jahwareeray maalin dhawt waxaan tagnay jaamacadda Firenze aan tagnay waxaana loo sheegay 4 dhalinyaro oo halkan la keenay oo loo soo diray waxbarasho loo soo diray dalkaas oo burbursan loo soo diray inay ka saaraan 4 sano ayagoo wax baranayay maalintii u dambeysay way ka dhaqaaqeen way ka dhuunteen meesha boorsooyinkoodii la hadeertaan meesha yaalaan waxaan kala hadlaynay sidii tababar loo heli lahaa dad loo soo diri lahaa waxa la yiraahdaa la soo dir beriti cararayaan maxaa laga soo diraa maartay yaani waa saasaan naga dhaba maartay taasa u baahan in wax laga bedelo aniga waxaan aan la hadlayaa qurba joogta Canada joogta Mareykanka joogta Ingiriiska joogta Talyaaniga joogta iyo markaad fiiriso website-yada waxa ku qoran iyo waxa la soo in la kala saaro daliishu waa inuu noqotaa daliil wax dhalinaysa inay tahay daliil wax taraysa inay tahay xoogana in laga soo leexiyo maxaan ku dhahdaa naqdigan aan waxba tarayn laga soo leexiyo xaqi sidii wax loo dhisi lahaa la sheego ma taqaanaa annagana inteena gudaha joogta inta wixii mas'uul ahna inaan bilowno in aanu dhadhansanno dhaliilaha la soo jeedinayo wanaaga ku jira waxa laga soo dhax saari karo oo dadkaas inta loogu kaalmeyn karo maartay Robert aad baa mahadsantahay intaasaan kusoo koobi lahaa aad baad mahadsantahay wareysigan la yeeshay wasiirka wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka Soomaaliya wanaag inta Maxamed Roberto Universal TV Roma waa mahadsantahay